ورحمة الله وبركاته لمان بلشدة محسنين تأدون كمال والبعد كجوكتان وحان لكلنا حالة أذك قوس أقون صوماليات هو يدان أدو جيدان المهان للشيء ayaa noogula yeeray goor galab ah anigoo ka imaaday shaqo ayaa waxa ii yeeray nin culimo ah oo deegaanka maaragtay tawfiiq degan ayaa ii yeeray ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha xafido wuxuu ugu yiri adinkaba dadka muslimiinta oo dhibaataysan dadka muslimiinta tusiya maadaama anagu shaqadeena ay tahay dhibanaha muslimka ah inaan tusino muxsiniinta adduunka wuxuu yiri waxaan ka codsanayaa inaad maaragtay muxsiniinta adduunka aad al-ihsan foundation maadaama aad tihiin aad gaarsiisaan dhibaatada xaaladdan qoyska ah waa kana sheekh waxaan rabaa insha Allah ta'ala si aad uga danqataan una gargaartaan qoyskan muslimka ah xaqiiqdiisa in aan siino assalaamu alaykum waraxmatullaah wa alaykum asalaam assalaamu alaykum waraxmatullaah wabarakaatuh anigoo ah Sheekh Cabdikariin Sheekh Cabdullaahi Aadam qoladan dhalinyarada ah aniga ka codsaday inay qoyskan la kulmaan agoonta ah xaafaday ka mid yihiin waana dadka aad aragtaan oo iska dhibaataysan weeye masaajidkaas hadda oo xaafada dhexdiisa ayaan dhowr mar waxa uu mataqaana oo tacaawin uga sameeyay wax ku filanna mana ku filan karo sida hadda naloo sheegayna waa 11 waaye agoontaas iyo habarta iyagana kulli afkooda ka sheegan doono oo habarta iyada hadli doonta biidnillaahi kariim haddii muslimiinta muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa dadkaas aad u jeedaan in la garab qabto oo wixii lagu awoodi karo lagu taro insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله غير كاس وحوها علماء الدين كحافظة التوفيق أو حالة القوس كان لدن قضي هذا وحارنا إن شاء الله وبهذا على الإحسان إني أيضا ورئيس أنك قادنا ولا السلام عليكم وعليكم السلام عروت هذا ماغي ككوبيهين طبني كو عرورة واي يا نلاش المهن كعاوية إله باي عاوية أبوه دعوي ودنتي قرمو دنتي 3 سنين سدبلو دويه wax eheladii ninka maaragtay ilmahan dhalay qaraabadiisa ah oo caawin joogta kula garab taagan ma jiraan qofaan Allah ahayn ma garab taagan muslimka Ilaahay oo dhax gala maxaa ka codsanaysaa dadka muslimiinta ah ee adduunka joogo inay ka caawiyaan ilmahaas ugu caawiyaan ay garab qabtaan ayaad ka codsanaysaa waxaan rabaa insha Allah haddii muslimiinta adduunka jeclaystaan inay ku caawiyaan telefoon lambar ma leedahay ay cod dheer u sheeg dadka muslimiinta telefoonkaaga si ku caawiyaan فراشن سديتن صدني اللبو هل مركز علي فراشن سديتن صدني اللبو مقعدو سدحن لولو على حسن وح كو إي 10 عرور wax maanta garab ka siinayo ku garab taagan ma jiraan Soomaha may Allah bis garab taagan Allah bis ku garab taagan insha Allah ta'ala muslimiinta adduunka waxaan ka codsanaynaa wad u jeedaan way ooyeysaa waa xaalad adag ilaahay dartiisa loo soo caawiyo annagu wax muraada kama lihin telefoon numberkeeda waad maqlaysaan magaceedu saddex waad maqlaysaan waa 11 caruur oo muslimiin ah dadka muxsiniinta adduunka insha Allah annagu intaas baan ajir ka raadsanaynaa hala soo caawiyo sheekh maxaad ugu duceynaysaa qof walba muslim oo dareenka caruurtan ka soo jawaab maxaad ugu duceynaynaa insha Allah in maalkiisa iyo xooggiisa iyo diintiisa inuu Ilaahay u barakeeyo cidaas u soo gargaarto waxaan ugu duceynaynaa maalkooda iyo awlaadooda iyo diintooda inuu Ilaahay waad u jeedaan awlaadiyo dhan way qushuucday maanta waxay dareemayaan inay garab muslimiinta ka heli doonaan waxaan ka codsanaynaa qoyskan waa agoon waa dad muslimiin ah wax garab ma haystaan hooyadood baa oo soo weylo ooyeen waxaan muslimiinta adduunka ka codsanaynaa oo Ilaahay darta ugu codsanaynaa in dadkan inay dad leeyihiin muslimiin leeyihiin hala soo garab istaago waa bahda al-ihsan foundation sultan xaaji cali canshuur wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh